بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وحن هلكا كسلام يا صومالي إذل كنو الأدونك دعا الذيسا وحن هلكا كسلام يا كنا هلا يا مقا عوضا دلين يراد الصوماليات كنو الأدونك دعا الذيسا وحن كو هلا يا مقا والدين تأودن كنو adduunka dacaladiisa waxaan ku hadlayaa magaca culimada Soomaaliyeed ku nool adduunka dacaladiisa waxaan ku hadlayaa magaca waalid walba oo ku nool qurbaha oo ku nool wadamada ajaanibta kana fikiraya sidii wadankoodii nabad ay ugu heli lahaayeen waxaan ku hadlayaa magaca dhalinyaro badan ku nool adduunka dacaladiisa mar ka fikiraya inuu wadankooda nabad iyo xasilooni ay helaan waxaan ku hadlayaa magaca gabar walba muslimad ah lagu cunsuriyeynayo xijaabkeeda diinteeda iyo midabkeeda waxaan ku hadlayaa magaca caruur walba lagu dhalaa bay'ad dhaqan iyo luqad ka duwan luqadahoodii iyo bay'adoodii iyo diintoodii kana fikiraya mustaqbalka luqadooda kana fikiraya mustaqbalka diintooda kana fikiraya inay helaan wadan ay ku noolaadaan ay iyagu leeyihiin ama iyagu u dhasheen waxaan ku hadlayaa magaca dhalinyarada ku jiraan xabsiyo kala duwan adduunka dacaladiisa waxaan ku hadlayaa magaca hooyo walba aabbo walba oo da ah ku nool qurbaha wadan bay'adiisa luqadiisa jawigiisa cimiladiisa uusan la qabsan karin waxaan ku hadlayaa magaca culimada ducaada ku nool adduunka dacaladiisa lagu dhibaateeyo xornimada ay u leeyihiin inay dadkooda diintu gaarsiiyaan waxaan ku hadlayaa magaca dhalinyaro wax baratay hogaamin iyo dhaqan iyo waxbarasho ku baratay adduunka dacaladiisa mar haminaya inay ku laabtaan wadankoodii siday u helaan deganaansho iyo kalsooni wadan ay leeyihiin ay wax maaragtay u qabtaan waxaan ku hadlayaa magaca qof walba oo dhalinyaro ah oo ku nool wadawadan qurbaha ah oo soo tahriibay oo dhibaato iyo dhib soo maray marna ku haminaya inuu ku laabtaa wadankiisa oo nabad ah waxaan la hadlayaa oo kelimadayda waanadayda wacyigelintayda ay ku socotaa shacabka Soomaaliyeed inta aad adduunka ku nooshihiin meel walbaad adduunka ku nooshihiin waxaan idin leeyahay aan u duceyno wadankeeni Soomaaliya aan u duceyno wadankeeni Soomaaliya in Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabad khayr qabta oo xasilooni inuu Ilaahayna siiya waxaan la hadlayaa askari walba oo u joogo oo u soo jeedo habeeniya maalin siduu u difaaci lahaa wadankeena waxaan la hadlayaa murashaxiinta isku soo diyaariyay inay wadankaas iyo inta dad aan soo xusay hogaamiyaan waxaan la hadlayaa khaasatan si qalbiyan ula hadlayaa xildhibaanada xilka loo dhiibay lagu kalsoonaaday meelal kala duwan laga soo doortay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay uga baqaan xilkaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku manaystay waxaan si khaas ah ula sii hadlayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaya xildhibaanada go'aankoodii ugu dambeeyay gacanta ku jira inta aan soo sheegay oo Soomaali ah oo caruur ah oo dhalinyaro ah oo hooyo ah oo waayeel ah ku dhaqan adduunka dacaladiisa mar ku haminaya inay ku laabtaan wadankoodii siday u helaan nabad iyo udgoon inay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga baqaan xilka loo dhiibay xildhibaanadaas ay fiiriyaan danta guud inay fiiriyaan danta guud danta wadankooda danta diintooda danta dadkooda inay fiiriyaan waxaan idin leeyahay fattaqullaha ya cibaadallah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqa oo waxaad samaysaan wuxuu Ilaahay raali ka yahay wuxuu rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam amray waxaan idin leeyahay mas'uuliyadaas la idin dhiibay
waxaad ku doorataan. idima dhahayno maanta annaga hebel doorta ama hebel ha dooranina, waxaan idin leenahay waxaad doorataan qof ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis aa isleedihiin inuu waddanka dadka danta diinta anfici doono, oo Soomaaliyo idil inta aan soo xusay siin doono hoggaan wanaagsan uu ilaahay subxaanahu wa tacaala kula xisaabtami doono. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuuna la xisaabtami doonaa liyawmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin. marka waxaan idin leeyahay xilka la idin dhiibay ku doorta qof aad ku kalsoon tihiin, qof aad og tihiin inuu waddanka diinta dalka danta anfacaya wax u qaban doono. waxaan kaloo la hadlayaa gabagabadii iyo gunaanadkii murashaxiinta isku soo isdul istaagay inay hoggaamiyaan inta aan soo sheegay, caruur, waayeelo, dad muslimiin ah ku nool adduunka dacaladiisa iyo waddankooda sidaad u hoggaamin laheedeed baad isku soo sharaxdeen. fattaquu llaha yaa cibaad allah, ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baqa. wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إلهي سبحانه وتعالى كبقى وواحد كبقى ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هدي أي دعذا إلهي سبحانه وتعالى قدر كيس أيكو دعذا أو متكين إذن كمن أهل دورتو وحان لدر دار ميا إنت كلا أو آن لدورانين إن أيكو احترامان، إن أيكو أضيعان، إن أي ما أركت إلهي سبحانه وتعالى سيدون أمري سيدون نبينا أمري إنات سميسان. إلهي سبحانه وتعالى وحوليه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلهي سبحانه وتعالى بان أمري وحان إذن كعد سنيا حدي مرلقا قوليستا إن آد إلى لسا احترامك انت ضد ان سو شيغو مسلمين او صومالي او اد كو احترامتان ددك لا دورتي او لوgu doortay natiijada soo baxday lagu doortay natiijadaasna la idin kaga guuleystay in aad ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baqdaan. waxaan gabagabadii iyo gunaanadkii leeyahay aan u ducayno waddankeena oo aan u ducayno inta doonaysa inay xil ka qabtaan. xilku ma sahlana, xilku wax sahlan ma aha, إلهي سبحانه جل وعلا أن أغبقنا. وحان إذن كرجينيا قفول بأوسو غارا فيديو غان انت لغارين مالين تدور الشدى إن أتصيفا فسان لعل الله سبحانه جل وعلا إنو ضدك أن الله يقولوب تودا ورقرقا وكرقا وناقا وكرقا عدالة وكرقا حقا وتسا انتاسو ضد عن صوت المامي لباتدودا dhibkooda walwalkooda walbahaarkooda inuu dusha saarta sidoo uu dadkaasi u badbaadin lahaa carruurtaas wadamada gaalada dhaqankooda, diintooda, dadkooda, dhaqankooda, luqadooda uga badbaadin lahaa. ilaahi subxaanahu jalla wa ala khayr farbaha idin siiyo. wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.